وزيرك ورشدها Somaliland أبيب ديريا نور بروفيسور أحمد إسماعيل سمتر وزيرك حريرك قلاياش أيام ما تصعد الكوي مدي قبل كجبلي وحنا مقالة الجبل وفتقني كسر دويي بس أبحكين كقبل كجبلي ما يرك الجبلي ما أملك جامعات تيم عدي أرض جامعات عسي صلادين يعقل أدو تربضن بروفيسور أحمد إسماعيل سمتر أو حلقوي ديها ميجيس سياسة Somaliland أيا شيء إن هدي رير قبله وديجان هانك سوتش إذا أو كرتان وكقيب قلي تونه قامت Somaliland وسؤال بلارن هرت ده كوراي كقيب قلك دلكاga inaad ka qayb gasho dadka hogaaminaya hadii lagu garto waxa way sharaf weyn wax sharaf ka weyn ma jiro adduunyada lagu noolyahay sharaf ka weyn ma jiro marka hadii ay taasi waqtigeedu yimaado reegay bay u taalaatay halkii aad ka timid aad ka dhalatay hadii laga waayo oo laga doonayn مال كلام تجي كريس شو مقدر رجعت تاسيس عشاء وزير كورشدها أبيب ديري نور oo isaguna ka hadlay soo dhaweynta loo sameeyay Professor Ahmed Ismaaciil Samatar ayaa warbixin ka bixiyay biyaha magaalada Gabiley waan ku soo dhaweynaa Ahmed Ismaaciil Samatar ruuxii Professor Ahmed inoo farxada inuu maanta inala joogo Gabiley inala joogo wallahi biyaha anigu waxaan u arkaa biyuhu magaalada way ku jiraan runtii inkastoo aanay sidii la rabay aanay ahayn oo aanay meelo badan oo aanay gaadhin waxaan kula talinayaa runtii markii imka warbixintii aan dhageysanayay dasooyinka iyo meel walba way gaadheen buu meeyarku yidhi weli haddaana baahidii way jirtaa waxaan kula talin lahaa inaad stations u samaysaan maayirka magaalada Gabiley Shacay Maxamed Muuse oo warbixin siinayay waftigani ayaa sheegay inay jiraan dhaliilo dhinaca biyaha isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri markii hore dawladda hoose maamulka biyaha waxa loogu talagalay in dadka ay soo wada gaaraan qof haystay qof aan haysan UNICEF-na waxa bixisay beebiska iyo wax noocaas oo kala magaalada contribution fara badan ay iska ururisay si biyaha loo soo jeexo biyaha magaalada loo soo geliyo markaa shirkadda maamulkeedii waqtigaa la wareegtay dadna waxaad moodaa biyaha sidii loogu talagalay in magaalada u gaadhaan inaanay u gaadhin waxa keentay markaa in golaha iminka ajendaha hadda golaha hor yaalla ka fadhigiisa afraad la tayeeyo in lagu tartamo in maaragtay la hagaajiyo dhinaca kalena qaar ka mid ah dadweynaha reer Gabiley ayaa ku soo xoomay xayndaabka dawladda hoose kuwaasi oo aaminsanaa fikir ka duwan ka ay maamulka Gabiley ka aaminsan yihiin biyaha iyaga oo sheegay in aanay jirin cabasho la xiriirta biyaha magaalada Gabiley intii soo baxdaba labada gacmood baan ku meedhana taa waxay idin cadeynaysaa dhulka halkii 1 kiiloomitir markaad socotaba biyuhu way soo boodayeen way fateen maanta maalin biyo la'aan laga cawdo maaha irkaan anagu lama qabnay biyaha labada gacmood baan ku meedhana horay biyo aan u weysadaan u tashiilan jirnay maanta waxaan ilaahay labada gacmood baan ku meedhana uska giibaba naga go'ay dad fara badan oo biyaha u baahnaa ayay kala qabtirtay marka waxa filayaa dadka ka hadlaya sida qadan warka u sheegaya inay yihiin dad dara gaar ah oo cid gaar ah ay soo wakiishatay laakiin anagu waxa filaynaa Samson biyagaas biyo dhaliil maaha Mukhtaar Nuux Ibraahim Hon Cable TV Gabiley